السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والي سلام الدمان ولا شرفت السودة وهذا ملبا جوكتان إذا عضها سوشيال ميديا إلا دولده وحي إسلا دحمريان maxay ku dhacday in shalay shabeelo laga baxo maantayna camaara laga baxo. waxaan rabaa qof igaga jawaabi karo sababtay ku dhacday in reer galmudug ama beesha habargedir in la dhaho dagaalama shabaab la dagaalama. maxay ku dhacday dhaawacooda inaan la daryeelin oo isbitaal digfer ay iska soo buriyeen oo isbitaal madiinana daawo loo waayay oo la yiri dibadda ha loo qaado cid u qaadana la waayo lacagtana Yurub iyo Mareykan iyo ganacsatada East Africa laga aruurinayo. maxay ku dhacday in la dhaho dagaalama maamul goboleedyada iyo deegaamada kale in hub baabuurta cusub iyo gaadiidka cusub iyo dharka cusub iyo koofiyaasha xabadda aan karin in loogu labiso beebayaasha iyo dabaabaadka iyo booyadaha cusub iyo baabuurta waaweyn inaan reer galmudug la siin iyo beesha habargedir inaan la siin oo laga ilaaliyo qabiilada kanala la siiyo ilaa Puntland iyo Jubbaland iyo Somaliland ay ka soo wada degayaan hubka xamar la keeno inta la qaado gobolada kale la geeyaa ilaa maamulka Hirshabelle gobolka Banaadir loo qeybiyo. koonfur galbeed waad aragteen waxa huba la sii. maxay ku dhacday in la dhaho shabaab la dagaalama misana aan hub la siin. midda saddexaad dagaalka la leeyahay galmudug kaliya shabaab ha iska xoreyso ee deegaamada kale ka socon maxay tahay qiyaanada ku jirto. intaba haddaad doonaysaan inaad ogaataan dadka igu xiran asxaabta khaaska ah way la socdaan inta kalena waxaan leeyahay luuqa soo gala dokumentiyaashii fiidiyoyaashii caddeyntii iyo dhammaan farta idinka saarayaa. waxaad aragteen maanta in la leeyahay shidaala la soo saarayaa galmudug ayaa ugu horeyso hobyo sida dhaqsiyaha badan degdeg bangiga dhexe ee Soomaaliya ayaa xarunteeda galmudug laga furay maamulkii ugu horeeyay. dhagarta qiyaamada waxa meesha ka socdo dadka looma sheegayo laakiin maxay ku dhacday dhalinyarada beesha habargedir kaligood in askar loo qoro askar la geliyo meel walba ayaga la geeyo ka dagaalamaan. reeraha kale iyo qabiilada kalena 4.5 in la dhaho adinka safiire iyo qunsulo iyo waxbarasho iyo shaqo dawlad iyo xafiis dawladda fadhiisanaysa. dhimashada anaga kaliya ma Ilaahay noo qoray badbaadinta dalka kaliya ma Ilaahay noo qoray. ninkii imaado hawiye anaga u dhimanayno anaga difaacayno kii imaado daarood anaga u dhimanayno anaga difaacayno dheefteedana ma heleno dhibkeedaan leenahay. raggii loogu talagalay inay u hadlaan ama xildhibaanada ka soo qaatay galmudug ee la rabay in maantay ay dhahaan waqtigeeni waaye dadkeena inaan wax u qabano wixii aan ceeshi karno waa soo ceeshnay hanti iyo dhaqaale iyo wax walba kulli imaaraad iyo turki iyo Kenya hoteelo iyo business iyo ganacsiyan ka furanay. muqdisho ganacsiyaasha iyo businesska aan ku leenahay ayaan ku ilaalsanaa kuraasta iyo taliyayaasha iyo wasiirada iyo xildhibaanada iyo dadkan marna dhinaca dawladda ku dulman marna dhinaca qabiilka ku dulman yaa u maqan beesha habargedir. camaara laga baxay shabeelo laga baxay yaa way dadka ka dambeeyo oo sida goonida ah targetka ku ah beesha habargedir isku laabta. mashruuc waxaa jiro isku dir beesha habargedir dhexdeeda hawi daarood dhexdeeda oo nabadii nolol ay wadaan. waa sababaha uga gaabsaday inaan arrintan uga hadlo. hadda waxaa la bilaabo la leeyahay gobolka Banaadir annaga iska leh gobolka Banaadir unuka iska leh martii inta kale ku yihiin taariikhda laga soo maray gobolka Banaadir ma ogo
waxa la isku haysto ma ogo, waxa la isku yahay ma ogo. intaas waxaa la tusay keliya beesha habargidir cid walba farta ku fiiqdo. waxaa arkay maantay wax yar oo qalada hadday habargidir sameeyaan jirar iyo jalaac cid istaagaysa ma leh. waa waray tuuga qabta laakiin kuwa kale tuugadooda lama qabto. annaga hadda wiilka yar oo maxkamadda lagu xukumay dil toogashada cali dembiga uu galay ilaahayna raalli kama ahan, annagana raalli kama nihin. waa baxsaday, gacanteena kusoo qabana maxkamadaan keennay. heer waxaa la gaaray nacayb habargidir loo qabo awgeed in social media oo dhan la wadwado. wiil habargira gabar gubay, gabar dil, hala dilo, hala toogto, hala dilo. annagaaba soo qaban oo keennay. dadkii kale aawe laba wiil ayaa adeerkood hooyadood qaba dilay, lagama hadlin. cid buunbuunaysa wadda ma jiro. gabaraa macalinkeeda canaante, walaalkeedii soo wacday madiyaa la geliyey, wiilkii madida geliyey waa cararay. cid buunbuunaysa oo wadda ma jiro. ragaa isku kufsanaya boosaaso, naagaa lagu kufsada boosaaso. cid wadwado oo ka hadlayso xaquuq raadinaysa ma arki. xaquuqdan habargidir laga dhex arkay, meel kale kama imaan. xasan sheekh maxamuud iyo habargidir sidii loo kala gol lahaa ayaa lagu jiraa falankeeda, ama la iskaga horkeeni lahaa. midda kale, xasan sheekh maxamuud ma abgaala? maya. ma qabiila? maya. waa damjadiid. damjadiidna qofkii saaxiib la ah oo damjadiid ah keliya ayuu yaqaanaa, ama xisbigiisa ka tirsanaa. kuwa la socdo habargidir ha u fiirinina, xasan sheekhna abgaal ha u fiirinina. damjadiidow iyo hawiyow, dhibka soo socda ayaa ka daran midka maanta beenta ah aad sheeganaysaan. midka soo socdaa ka daran. ninkii xaaraamiga ahaa ayaa dib inoogu soo laba kacleynayo oo inoo adeegsanayo rag fiidooyo uu ka hayo sheekh shariif iyo cabdiraxmaan shakuur iyo ayuu inoo soo adeegsanaya. wixii al-shabaab ahaayo dhan dowladdu ku wada daray. mid uu ka dhigo agaasime, mid uu sargaal ka dhigo, mid uu taliyo ka dhigo, kuwa askarta ku daro, kuwa xafiisyada dowladda ka shaqeeyo. dowladdan waxay la tacaalaysaa kala shaandheyntii al-shabaab ilaa ay maanta dada la soo qabanaya. marka waxaan leeyahay xasan sheekh dhib walba uu wato iyo qalad walba uu naga gelayo waxaa sabab u ah xildhibaanadeenna. marka waa inaa xildhibaanadeenna aan ku jeesanaa. wabilaahi tawfiiq.